Assalaamu calaykum asxaabtayda Daryeel Kitchen soo dhawaada gacmo furan maanta waxaa idiin wadaa rooti yar oo aad iyo aad u fudud waxaana loo yaqaanaa brioche bread waa rooti yar oo nafaqeysan recipe-ga rootiga insha Allah mar ayaa idiin soo gelinaya laakiin maanta waxaa isticmaalayaa rootiga diyaarsan haddaadan haysanin rootigan waxaa isticmaali kartaa ayu rooti oo guriga ku yaalo especially rootiga markuu cabaar yaalo oo aad aragtina soo yaro qalalo ayaa ku fiican marka u horeysa waxaan ku darsanaynaa 4 xabo ukun waxaan ku darsanay caanaheeni sokorta ilaa 2 ilaa 3 qaado oo sokor ah waxaa kaloo ku darsanaynaa qarfaha shiidan ha hilmaamin aad ayuu caraf u siinayaa waxaan kaloo ku daray carfisadana xoogo ukunta ayay yara carfinaysaa intaas markaa isku dartid waa isku qasaysaa si fiican ayaa isku dhexgeline kadib dhinaca waxaa soo qaadanaysaa birtaawadaada waad kululeyni subag yar iyo saliid ayaan mariyey waxaa kaloo marka sameynaynaa hadda rootigii caanihii noo qasnaa ayaa waxaa sameynaysaa hal ayaad u gelini hal mar ayaad gelini isla markiina waxaa saaraysaa birta adi ilaa 2 ilaa 3 daqiiqo ayay qaadanaysaa markuu labada dhinac ay rootiga uu ka noqdo golden color waa diyaar yuuna kaa gubanin temperature-ka oo birtan waxaa ka dhigaysaa si dhexdhexaad ah يعني حرارة because لما رب إن حرارة آد وكلولات هدي آد وكلولات روتينا هروك جذوذنا حوجو عيرين ونقرأ وكنت أيانا كده ميسو سداسنا ما فيعنو إن شاء الله مركادو حسميننا روتيجا أي أساس كنا ميننا مركاد دمينه وكان روتيجين وحينون نقضي ذهبي مذب كذهبيجا وحواي ما شاء الله تبارك الله لك هدو قبتو ذهبي ما أهنيا marka asxaabe insha Allah waxaan rajeynaa recipe-ga inaad ka heshaan recipe yar oo iska fudud waaye ilmahana mar quraacda markii laga naco ayaad ugu bedeli kartaa waa recipe aad subax intayn iskuulka aadina u boobsiin kartid wax kastana ma aragtay waa wax iska fudud wixii lagu cunaayeen waxaa sameynaysaa qudaarta kale mooska jarjar fruudyaasha ayu fruud ayaa jarjare sokortana waxaa sameyn kartaa midda oo powderka oo icing sugarka loo yaqaano ayaa kor kaga daadin kartaa haddii kalena malab yar ayaad kor ugu shubeysaa sida arkaysaana waxaa sameeyey cananaas yar iyo strawberry iyaal ayaad biyaha haf ku siiyey adi ilaa 5 daqiiqo camal kadib markay bislaato kor ayaad maaragta waxaa u dhigay wax yar oo soos ah insha Allah recipe-gan oo maaragta qudaartana mar idiin soo gelinaa marka insha Allah asxaabi waxaa idinkaga tagayaa assalaamu calaykum haddii adigu cusub tahay ha hilmaamin like button subscribe insha Allah intaa mar kale wada kulmeenana waxaa idinkaga tagayaa assalaamu calaykum